الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. maanta waa dersigii labaad oo shalay waxaan soo qaadanay suuratu naba, maantana waxaan qaadanaynaa alla idinkii subxaanahu watacaala suuratu naasicaat. magacaasay leedahay, waa magaca suuraddu ku bilaabato wannaasicaati gharqaa. waa suura makiya markay ku soo degtay. xagga isku xigidda suuradahana suuratu naba bay ka dambeysay, bacda suuratu naba ayay soo degtay oo ayadaa ku xigtay. suuraddu waa 46 aayadood wey. sidaan soo sheeganay suuradaha juscama waxay u badan yihiin suwar makiya. qaabka ay suuradan u hadlayso waxay u dhowdahay ama isku mowduuc yihiin suuratu naba. waa 5 maqdac suuratu wannaasicaat. maqdaca u horeeya aayadda 1 ilaa aayadda 14 dhimashada iyo qiyaamaha ayay ka waramayaan aayadahaas. maqdaca ku xiga 15 ilaa 26na qisadii nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam maca daaqiyati fircawn ayaa rabbi in yar ka taabanaya oo la xiriira mowduuca suuradda oo ah dadkii kibraya qooqay ee ninkaas ugu sarreeyay wixii ku dhacay. maqdaca saddexaad oo ka bilowda 27 ilaa 33na awoodda ilaahay subxaanahu watacaala iyo aayadaha kowniga iyo dadka inkirsan soo bixinta iyo qiyaamada ayaa si gaara weliba toos waxaa loola hadlahayaa reer maka oo dee maanta ay matalahayaan bini aadamka koonkan jooga ee inkirsan qiyaamaha iyo jiritaanka alle subxaanahu watacaala. qeybta afraad qiyaamaha ka sheekaynaysa qiyaamuhu markuu dhaco 34 ka bilow ilaa waxaad tagtaa 41. waxay ka sheekaynayaan qeybtaas afraad ka sheekaynaysaa qiyaamaha markuu dhaco iyo insaanku sida uu noqon doono iyo say u kala bixi doonaan bini aadamku oo 2 qaybood ay noqon doonaan. qaybna qaybtii fiicneed adduunyada janno aadayso, qaybtii xumayna ay naar aadayso. qaybta u dambeysa suuradda oo qaybta 5aad ah oo laga bilaabo 42 ilaa 46 su-aal ay keeneen nimankii qiyaamaha inkirsanaa ayay aayadahaasi ka sheekaynayaan. yasaluunaka can isaacati ayaana mursaaha. bismi illaahi araxmaani araxiim. alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wannaasicaati gharqa wannaashidaati nashda wasaabixaati sabxa faasaabiqaati sabqa falmudabiraati amra. 5 aayadood maxaa looga jeedaa? dhowr tafsiir baa ku jirta, laakiin waxaan soo qaadanaynaa in 5 malaa'igta lagu fasiro, malaa'igta looga jeedo oo rabbi subxaanahu watacaala uu ku dhaaranaya malaa'igta shaqooyinka ay qabtaan. malaa'igtu waa khalqi ilaahay oo nuur laga abuuray oo ka duwan insaanka oo rabbi subxaanahu watacaala aan caasin, amarkiisa aan diidin, ee markasta ku jira yusabbixuuna alleyla wannahaara laa yafturuun. wannaasicaat man alla waxaan ku dhaartin walmalaa'ikati malaa'igta annaasicaati ka siibta ruuxda iyo nafta dadka gaalada qarqan si hafashaa si adag uga siibta. alla wuxuu le waxaan ku dhaartay malaa'igta nafta ka qaadaysa gaalada kufaarta
si adag uga qaadaysa. nascu waa siibidda, qarqanna waa hafashada si adag nafta uga qaadaysa. qofku markuu dhimanayo ee nafka bixu soo dhowaado meesha u socdo waa arkaa, meesha u socdo wuu arkaa qofku. marka nafti markaa isdhejin jirkay isku dhejin haddaan meel xun loo wado marka xoog baa looga siibaya, si adag ayaa looga siibaya. alla wixii wanaasicaati walmalaa'ikati baan ku dhaartay annaasicaati siibaysa arwaaxda gaalada qarqan hafasho si adag u siibaysa. wanaashidaati baan ku dhaartay walmalaa'ikati malaa'igta annaashidaati siibaysa ruuxda muuminiinta nashtan si sahlan. nashtiga waxaa la yidhaahdaa dabarka kartiga lagu xiro oo loo yeelo meel dhiftinahay maaragtay yaro laga furo jag laga siiyo si sahlan macnaha ayaa la yidhaahdaa. marka malaa'igta ka siibaysa arwaaxda muuminiinta si fudud uga siibaysa, si sahlan oo fudud uga siibaysa. wanaashidaati baan ku dhaartay malaa'igta siibaysa arwaaxda muuminiinta nashtan si sahlan oo fudud. layskuma haya marka bini aadamku in la dhimanayo, dhimashada khilaaf kama jiro, waa laisku waafaqsan in la dhimanayo. laakiin dhimashadan maxaa ka dambeeya? yaa ku abuuray marka hore, yaase ku dilaya? alla wuxuu yidhi wasaabixaati maan ku dhaartay malaa'igta dabaalata hawada sabxan dabaalasho. hawadan sare malaa'igta marna samada koraysa marna soo degaysaan ku dhaartay, shaqooyin loo diray qabanaya. oo malaa'igtu rabbi subxaanahu watacaala ayaa adeejiya, shaqoon bay qabtaan. xadiidka nebigu waa aragteen sala allahu calayhi wasalam, malaa'igta dadka ka warqabta ee wax ka qorta waxay isbedelaan salaada subax iyo salaata casir bay isbedelaan. yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatu min leyl wamalaa'ikatu min nahaar, way isbedelaan salaada subax iyo salaada casir. qaarba shaqay qabtaa oo rabbi u daray subxaanahu watacaala. wasaabixaati baan ku dhaartay malaa'igta dabaalata hawada sabxan dabaalasho oo marna samada koraysa marna soo degaysa iyagoo fulinaya awaamirta rabbi subxaanahu watacaala. fasaabaqaati baan ku dhaartay malaa'igta ta dheeraynaysa oo u horumaraysa sabqan dheerayn. sabqu waa tartan qofku markuu dheereeyo xoog u socdo, malaa'igta u horumaraysa oo u tartamaysa fulinta amarka alle subxaanahu watacaala. culimmada qaar waxay yidhaahdeen fasaabiqaati sabqan waxaa looga jeedaa ruuxda markay ka qaadaan malaa'igta bay aada ula dhaqsadaan si ay ugu horumariyaan jannada. samadaa lala koraa arwaaxda muuminiinta. kalaa ina kitaaba alabraari lafii ciliyiin, kuwa kalena ina kitaaba alfujaari lafii sijiin. waa u tegi doonaa. fasaabiqaati baan ku dhaartay malaa'igta u horumaraysa fulinta amarka alle sabqan horumarid, macnaa u dheeraynaysa inay amarka alle fulisa subxaanahu watacaala. falmudabiraati baan ku dhaartay malaa'igta maamusha amran arinta. malaa'igta arrimaha rabbi u xil saaray subxaanahu watacaala maamushaan ku dhaartay. dee malaa'igtu qolaba shaqadii loo diray qabanaysaa. mid loo diray inuu dadka nafta ka qaado, mid loo diray ilmaha caloosha lagu abuurahayo ilmagaleenka inuu ku afuufo ruuxda, mid loo diray dadka inuu la socdo, wax ka sajilo ka qoro, khayr ee shar waxay sameeyaan, kuwa roobka ka shaqeeya, kuwa shaqo bay qabtaan. falmudabiraati baan ku dhaartay malaa'igta maamusha amran arinta. jawaabtu marka waa maxay? dhaartu qasamku jawaabu leeyahay. luqada carabina in la sheego markasta khasam maaha. jawaabtu waxa weeyaan latubcathunna, waa layna soo bixinaya. alla markuu intaasoo dhaartay 5 dhaarood, dhaartuna warkaa lagu adkeeya. rabbi inuu dhaartana wax ku khasbahayaa ma jiraane, laakiin dadka diidan qiyaamaha ayaa lagu adkayn. latubcathunna waa layna soo bixin. inaad dhimanaysaan ma ogtinaa? waa dhimanaynaa, muran kama jiro. xaggaa aadaysaan? waad dhimanaysaan, waa layna soo bixin doonaa. latubcathunna waa layna soo bixin. yowma tarjufu raajif, qiyaamihi waa kan marka. yowmad marka waxay ku tacalluqaysaa jawaabta xadfan ee latubcathunna halkaa ayaa lagu tacallujin darafka yowmu. amaba waxaa odhan kartaa wadkur xus yowma maalin ka sheekee tarjufu ay gariirayso arraajifatu tii gariiraysa. maalinta ay ruxmaysa tii ruuxaysa, koonka tii ruuxaysay maalinta ay ruxmayso. waxaa looga jeedaa nafkhata aluulaa,
buunka marka la afuufo koobaad adduunkoo dhan uu gariirin baabi'in cirkii baa baabi'in dhulkii baa baabi'in wax kasta waa dumahayaan waa baaba'ahayn waa u tegi doonaa gariir baa dhacaya yowma tarjifu alardu waljibaalu wa kaanat iljibaalu kahiiban mahiilan eber bay noqonaya yowma maalin ama ku tacaluuji maaragtay jawaabta xadfan ama wadkur u qadarba yowma maalin baa layni soo bixin tarjufu ay lulanayso arraajifatu tii lulanaysay tii gariiraysa oo koonka ruuxaysa waa nafkhatu dhuula marka buunka uu yeeriyo israafiil koobaad adduunkao dhan uu baabi'in wuu dhimanaya wixii noola waa dhimanaya tatbacu waxaa raacaysa ama iska xaalee tatbacu xaala ay raacaysa dheh haa raajifada arraadifatu tii fangelaysay tii daba joogtay ridfiga waxaa la yidhaahdaa daabadda marka qof saaran yahay faraska ama maaragtay rakuubka ama dameerka qofka koobaad maa kan labaad baa le ridfi la yidhahda kan ku daba jira ee la saaran baa la yidhahda hadda waxaa looga jeedaa nafkhatu luulaa waxaa ku xiga annafkha thaaniya ku xigta tii labaad baa ku xigta raadif waa ku daba jirta oo dadku markii haddii buunka la yeeriyo koobaad oo la baaba'o muddo ka bacdi ayaa markaa waxaa la yeerinayaa kii labaad waa lasoo baxaya marka wa nufika fi suuri fasaciqa man fi samaawaati waman fi lardi ilaa man shaaa allahu uma nufika fiihi ukhraa faidaa hum qiyaamun yanduruun tatbacu waxaa raacaysaa haa raajifada arraadifatu tii fangelaysa oo ku daba jirtay ayaa raacaysa haddii marka qiyaamo dhaco oo lasoo baxo maxaa dhacaya quluubun quluubi yowmaidin maalintaas gariirku markuu dhaco ee lasoo baxo waajifatun way cabsanaysaa quluubtii gaalada rabbi diiday subxaanahu wa tacaala ee qiyaamaha inkirtay maalintaa way biqin way gariirin way cabsanin absaaruhaa indhaheedu indhaha qulubta qofkii baa looga jeeda indhihii qofka looga jeedaa absaaruhaa indhaheedu khaashicatun waa dulaysan yihiin quluubtii maalintaa way cabsan dhibka ay arkayso qofka saa biqina si gaar ay u baqayaan gaaladii way cabsanhayaan quluubun yowmaidin waajifa absaaruhaa indhaheeduna khaashicatun waa dulaysan yahay adduunka markay joogeen maxay dhihi jireen marka maanta dhibkaana haysta laakiin markay adduunka joogeen maxay oran jireen yaquuluuna waxay leeyihiin oo markay adduunka joogeen a innaa annagu la marduuduuna kuwa la celin maa nahay fil xaafirati ciri tii dambe waxaana waa diidma waaye waa inkiraad waaye ma waxaana loo celin doonaa filxaafir xaafirada waxaa la yidhaahdaa markaa meel soo lugaysay oo meesha aad soo martay raadkii a ku laabata le xaafira raadkaagii aa ku laabatid waxay leeyihin marka oo haddaan dhimanno oo qabri galno maa waxaana loo celin doonaa noloshii hore raadkii hore maana loo celin yaquuluuna waxay leeyihiin a innaa annagu la marduuduuna kuwa la celin maa nahay filxaafirati gadaal raadkeennii dambe adduunyada maana loo celin a idaa kunnaa haddaan ahaano manala celin cidaaman lafo nakhiratan baaliyoobee baaba'ay oo haddaan ciiddiina cunto oo lafaheennii baaba'aanoo ay noqdaan wax baaba'ay manala celin waa inkirhaya inkiraad wey a idaa kunnaa haddaan ahaano manala celin cidaaman lafo nakhiratan baaliyoobee baaba'ay qaaluu waxay yidhaahdeen tilka taas qiyaama hadduuba jiro idan hadday sax tahay dhe tilka taas waa qiyaamihii idan haddayba jirto oo sax tahay karatun waa celin khaasiratun aan ku hungownay aan ku khasaarnay haddayba dhab noqoto in qiyaama jiro wala tacabkeenba balaadaa nagu dhacday lamaana shaqaysan ama in lagu fasiro khaasiratun waxba kama jiraan waa beenbeen waxba kama jiraan waxaas qaaluu waxay yidhaahdeen tilka taas qiyaamada la sheegayo idan haddayba sax tahay oo jirto karatun waa celin khaasiratun aan ku hungowno ku khasaarnay lamaana rumaysanayne jawaabta rabbi subxaana wa tacaala bal dhegeyso alla wuxuu yidhi fa inamaa in kala maahane hiya qiyaamadu yani rajfada ama raadifadu qiyaamadu zajratun waa qaylo waaxidatun hal mar ah adiga waa ila culus tahay ma dhici doontaa mina la soo celin alla wuxuu yihi waa hal qaylaba sayxa waaxida wey wamaa amrunaa ilaa waaxidatun ka lamxin bilbasar hal maraba malagu qaylin waa lasoo bixi soo bax waa lasoo baxaya
alla wuxuu fainamaa in kale maana waa xasriye hiya qiyaamadu raadifadu zajratun waa qaylo waaxidatun hal mar ah fa idan isla markii malagu uu qayliyo hum bini aadamku hum kuwaan waaye iyo wixii la mid a hum bini aadamku ayaku bisaahirati dhulka dushiisay ahaadeen hoosay ku jireen soo maa saahirada dhulkaa looga jeedaa saahirada waa taqaanaa sahriga waa soo jeedka dhulka waa lagu dul nool yahay waa la soo jeedaa waa la seexdaa marka hadda dhulkaa looga jeedaa isla markii lagu qayliyo oo qaylada ay maqlaan oo hal mar ay ka soo baxayaan qabuuraha kulli bannaankay taagan yihiin cid diidi karta ma jirto fa inamaa hiya zajratun waaxida fa idan isla markiiba hum ayaku bini aadamkii bisaahirati bannaankay joogaan taas waa qiyaamadii waa qaybtii koobaad marka say in la culus tahay maahan dadka diidanow waa sahlan tahay soo bixintu marka hore allah ina abuuray waa ina dilay ayaan baa qabuuraha ku jirteen kabacdii soo bixintuna waa sahlan tahay iyaduna allah subxaana wa tacaala wuxuu u soo qaadanayaa tusaale dadkii hore qisaskii hore ambiyada qiso ka mid oo nebiyullaahi muusa calayhi salaam iyo fircawn oo daaqiyo ahaa oo inta qooqday ugu qooq badnaa oo ilaahnimo sheegtay maxaa ku dhacay ninkaa qisadu aaday u kooban tahay qisadii nabi muuse calayhi salaam iyo fircawnna qur-aanka way ku badan tahayoo meelo badan bay kusoo aroortay laakiin in yaroo waafaqsan ujeeddada suuradda baa rabbi ka soo qaatay hal ataaka ma kuu yimid nebi moxamed oo sala allahu calayhi wasalama su-aashu macnaheed waa kuu yimid sheekadaa waa haysaa tashwiiq baa la yidhahda hal ataaka ma kuu yimid nebi moxamed oo sala allahu calayhi wasalam xadiidu muusa nebi muuse sheekadiisa id waqti u sheekaa naadaa uu dhawaaqay hu muuse rabbuhu rabbiyuu u dhawaaqay rabbigaa faacilkaa id waqti u sheekaa naadaa uu dhawaaqay hu nebi muuse rabbuhu rabbiyuu u dhawaaqay rabbi baa u dhawaaqay waa dhawaaqidyaa badan waaye qur-aanka in badan baa ku aragteen rabbi baa la hadlay subxaanahu wa tacaala nebi muuse bilwaadi waadigii xaal uu ku sugnaa nebi muuse waadigii almuqadasi la dahiray duwa magaciisuna duwa u ahaa sheekadii nebi muuse calayhi salaam ma haysaa xilligii rabbi subxaanahu wa tacaala uu u dhawaaqay nebi muuse inanii ana allaahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii markaana waadiga la yidhaha duwa ee muqadaska duurusiina ku yaala ayuu joogay nebi muuse maxaa la amray alla wuxuu yidhi idhab tag nebi muusow ilaa fircawna fircawn intikaa aad ninka fircawn la yidhaha aad xaggiisa innahu fircawn dagaa waa qooqay waa xad dhaafay insaannimaduu ka baxay ilaahnimu sheegtay ninkaa orod u tagoo risaalada gaarsii oo faqul waxaa ku tiraahdaa haddaa u tagtid hallaka hadal aada u macaan weeye hallaka ma doonaysaa ma rabtaa dan ma kaa haysaa ilaa an tazakaa inaa islaamtid inaa isdahirtid taskiyadu waa islaamnimada inaa isdahirtid gaalnimada ka baxdid xaqa qaadatid ma rabtaa niyo ma danaynaysaa oo wa ahdiyaka aan kugu toosiyo oo kugu hanuuniyo ilaa rabbika rabbigaa intii ka ah rabbigaa rumayntiisa iyo raaciddiisa inaan kugu toosiyo wadadaa ku tuso diyaar muu tahay niyo oo fatakhsha haddaa rabbi rumaysid fatakhsha ka cabsatid khashi ay ku gasho cabsi alla ay ku gasho ilaa cabsida alla waxaa ka horeeya macrifatullaahi subxaanahu wa tacaala inamaa yaksha allah min cibaadihi alculamaa nabiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam fircoon buu u tegey hadallada macaan buu ku yidhi waa inkiray mucjizu tusiyey marka fa araa wuxuu tusiyey nebi muuse calayhi salaam hu fircawn al-aayata calaamo alkubraa weynin badan mucjizo weyn buu tusiyey alcasaa walyad gacantiisii hadduu halkaan geliyo iftiimaysay iyo ushiisii noqonaysay abeesada ama maska noqonaysay mucjizu tusiyey maxaa wada taagay in rabbi ku soo diray maxaa u daliila haye fa alqaa muusa casaahu fi daahiya xayatun tasca wa thucbaanu mubiin
فأرى وحو تسي نبي موسى عليه السلام هو فرعون الآية علامة معجزة الكبرى وين بدل فكذب وبيني نبي موسى بيني عليه السلام فرعون وعصى أمر كيسين واديد أما وعصى ربه ربي وعاسي نبي موسى لا نبي موسى كذب نبي إلهي ويه فكذب وبينيو قلبي وكبيني أو كمان رمين قلبي الضمير كيس وعسى أمر كيسين واديدو حملي هنا كمفلي فرعون عندكم كيس المركة ثم أدبر واجهستي فرعون يسعى حاله دقدقها يو شقينها يو كشقينها يو سيدو بختين لها رسالة النبي موسى عليه الصلاة والسلام فرعون واجهستي وابحي وحونا كشقينها يا سيدو النبي موسى عليه الصلاة والسلام رسالة ديسة وهرتقي لها وبابين لها محو سميه مركة فحاشارة وحو شريين وسو كلمي عيدا مديسي على وحي راعسنا أبو سو شريين ضد بني آدمه أيو هروسدي قلبه مسكحه ku cayaaray ayakuna doqomay ahaayeen wax magarad bay ahaayeen waa iska rumeeyeen fastakhafa qawma fadaacuhu fanaadaa markuu soo shiriyo dhawaaqay oo muxuu sheegay faqaala wuxuu yiri ana anigu fircoonkan xunka rabbukum rabbigiin baanay ala saraynta badnaa oo sareeyay oo fircoon maxaa sheegtay guriga alla bi muxuu sheegay dadkii iskugu yeeray waa shiriyay khudbadiisa maxay noqotay ana rabbi iniya hada rabbi waa midka koonka abuuray oo dadka abuuray oo dadka maamula shal uba dhashay fircoon darajada gaaray waxa gaarsiiyay dadka uu xukumayay dad liita ah sideedana dadka duqaada waxa qooqiya shacabka liita alla wixii fastakhafa qawma fadaacuhu aqalgoodu ku cayaaray yadnimadooda markaas iska adeecay dil orna war waa beenta runta maaha shalaaba dhalata fircoon mid kale ka horeeyay adna waa dhimanaysa rabbina ma tiid saama yeeleen ee dad buu harowsaday waa u sacbiyeen waa u rumeeyeen markaas uu qooqay waana waxa qooqiyo duqaada dadka oo duqaada qooqa shacabka wax ma garadka on aqliga lahayn wax fahamsaneen baa qooqiyo fircoon marka waa qooq فحشر واشري فنادى ودواقي فقال محير انا ربكم ربكين بان على سري انا بأسري ربياش ما كل عين مركه قصه قران وارتن ودي اد لو فاهفاهي ولا سو كوبايا niman kan oo xaq diidan xilligii ma ka joogay ama ku maanta jooga waa dunida ku nool ayaa la tusaale u tahay فاخذه الله فاخذ الله واقبتي هو فاخذه الله واقبتي فرعون muxuu ku qabtay nakaalal aakhirati aakhira ciqaabkeedii aakhirada soo socota iyo wal uula adduunyada ciqaabkeeda alla ku qabtay alla wuxuu ku qabtay fircawn cuquubo aakhiro iyo tii adduunyadana waa la ciqaabay oo waa tii biyaha lagu hafiyey aakhirana cadaabaa sugaya tafsiirkaasa ugu raajixsan tafsiir kale jiro oranaya waxaa lagu ciqaabo loo qabtay laba eray ana rabbukum al'ala oo tii damba ah iyo tii ka horeysa uu yiri ma calimtu lakum min ilaahin ghayri labada eray waa lagu fasiraa ayadan tii hore oo ahayd ma calimtu lakum min ilaahin ghayri iyo midaan hadda uu ku hadlay labadaas lagu ciqaabay laakiin midda waxa xoog badan xagga tafsiirka in la yiraahdo aakhiradu waa aakhiradii dambe ciqaabaas la ciqaabi doona الأولى ومد الدنيا نكالك وحال يرادا عقوبة قف لغو سميه سي مدك الأقوى نقاط بان نكالك اللي يرادا مركا عقوبة كل عضي فرعون وحي درسو تاي مدك استو الضاغية أو قوقي أو ربي انكرو ديدي أي أتاي درسي فأخذه الله وحكوكبت فرعون نكال الآخرة آخرة عقوبة دي يوال أولى تي هوري والدنيا دا adduunyada waatii biyaha lagu hafiyey soo bakti oo meeyda banaanka baddu soo tuftay aakhirana wuxuu hogaaminayaa qoomkiisii naarta yaqdumu qawmuhu yawm alqiyaamati fawradahum an-naara bi'sa al-wird al-mawrud inna fi dhalika qisada waxa ku sugan fircawn iyo wixii ku dhacay
lacibratan waana qaadashaa ku sugan liman qof duul yakhshaa alla ka baqaya subxaana wa tacaala. qisada fircawn ninkaa qooqaya kibray ee masar xukumi jiray ee rabbinimada sheegtay dersiga laga qaadanaya muxuu yahay? waxaa ku sugan cashar iyo cibro cid kastoo baqaysa oo rabbi ka baqaysa subxaana wa taala cuquubadiisa. darajada uu gaaray cidna ma gaarin. inuu qofku rabbinimo sheegto darajo ka sarreysa oo la gaari karo xagga gaalnimada ma jirto. halkaasuu gaaray soo maahan, isagiina halkaasuu ku dambeeyey. taariikhda akhri, isagiiba arag. ilaa hadda waxaa li meydkiisii baktiisa hadda waaba yaallaayo waaba la daawadaaba. oo ilaah wuxuu ballan qaadayba inuu bannaan keeni doono. falyowma nunajiika bibadanika litakuuna liman khalfaka aaya wa ina kathiira min annaasi can aayaatina lagaafiluun. taasna waxa weeyaan waa qeybtii labaad ee maqdacii labaad ee suuradda oo ku saabsanaa qisadii nebi muuse iyo fircawn markuu xaqa diiday wixii ku dhacay. qeybta ku xigta aayadda 27 ilaa aayadda 33 nimankii waagaa noolaayee reer quraysh ama kuwa maanta nool ee diidan in la soo bixin doono ayaa rabbi wuxuu uga sheekaynayaa subxaana wa tacaala aayaadka kowniga. bal waxa aan dhisay iyo waxaan abuuray arka iyo tabardaridiina adinka isfiiriya. a antum adinka miya kuwiinaan xuunka oo ducafada a antum adinka miya ashaddu daran oo adag khalqan abuurista amase asamaau samadaa daran. adinka abuuristiina miya adag oo dhib badan mase samada? adinka samada yaa horta culus, yaa marka abuursaan la yidhaha hal abuuro yaa lagu rafaadaya. rafaad marna ma jiro, rabbi ma rafaado subxaana wa tacaala. laakiin abuuristiina iyo samada kee culus keebaa adag? la khalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi innaasi walaakina akthara annaasi laa yaclamuun. antum adinka miyaa kuwiinaan gaalada ah ee qiyaamaha bacdiga diidan miyaa ashaddu adag oo daran khalqan abuurista ama samaau mase samadaa daran oo adag? samada jawaabtu waa samada. banaa alla waa dhisay haa samadu alla dhisay, isagaa dhisay. rafaca waa kor yeelay rabbi samkahaa saanqaafkeeda. samkigu waa dadka adduunyada samada soo maaha. saanqaafkana waa tahay. waxaa kaloo ku jira samkiga jirmigeeda, jirmiga ay leedahay samadu. jirmiga soomaaliga maxaa lagu yidhaha? samkiga dhumucda samada yani culeyskeeda sida xoogga ay leedahay. rafaca alla waa kor yeelay samkahaa saraynteeda dhe saanqaafka saraynta iyo jirmigeeda alla waa kor yeelay. fasawaa alla waa sinay haa samadiiba alla sinay. alla markuu dhisay subxaana wa tacaala saanqaafkan samada naga sarreeya ee dadka u adduunyada oo alla sare u qaaday jirmigeeda iyo maarata xoog badan yahay alla waa sinay. meel kastoo ka fiirisid meel jeexan male, say u sinan tahay, say isku la-eg tahay, xooggeeda meel dabacsan male. waaqdasha alla waa mugdiyeeyey leylahaa hamiinkeeda rabe mugdi waaqdasha alla mugdi buu ka dhigo waa mugdiyeeyey leylahaa hamiinkeeda. hamiinka samada loo tiiriyey ee samada qorax dhacay qorax soo buxu samadu ka muuqdaa soo maahan. waaqdasha alla waa mugdiyeeyey leylahaa hamiinkeeda wa akhraja alla waa soo bixiyey oo waa iftiimiyey duxaahaa barqankeeda. hamiinka rabbi subxaana wa tacaala mugdi buu ka dhigay, maalintii rabbi subxaana wa tacaala iftiin buu ka dhigay. waaqdasha alla waa mugdiyeeyey leylahaa samada hamiinkeeda wa akhraja alla waa soo bixiyey oo waa iftiimiyey duxaahaa barqankeeda, maalintiina alla iftiin buu ka dhigay. ila barqadu waa qayb maalinta ka mid a. waalarda dhulkii oo aayaadkii kownigaha. waalarda dhulkii bacda daalika markaa ka bacdi markuu samada alla dhisay oo hamiinkii ka dhigay mugdi oo maalinta iftiin ka dhigay daxaa waa fidiyey haa samadu alla fidiyey. waalarda dhulkii bacda daalika samada markii rabbi taagay oo hamiinkeeda mugdi ka dhigay oo maalinta iftiimiyey daxaahaa alla waa fidiyey haa dhulkii. akhraja alla waa soo saaray minhaa dhulkii maahaa biyaheeda baa rabbi ka soo saaray wixii la cabbi lahaa. dadku waxay cabbaan dhulka ka soo baxaan, samaday ka yimaadaan, dhulkaa lagu kaydiyaa. amaba ha ahaato ceel ama webi ha ahaato ama ha ahaato durdur waanzalnaa min asamaa'i maaan biqadarin
فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون أخرج الله وصو صاري منها دولك حقيسة ماها بيهذا ومرعاها داقي هذا وحي لداقي لها داقة waxaa isku jira oo xooluhu ay cunaan iyo wax dadku ay cunaan labadaba labadu waa daaqo xayawaankuna dhirtay daaqaan bini'aadamkuna cunada daaqaan ayagu waa cunaan waa ku wada jiraan والجبال بوره بو الله وأرصاد الله واقتميي الجبال بوره أرصاها دولكو كقتميي رسك waxaa la yiraahdaa doonta ama markabku marka soo xirto meelaha xeebta baroosinka marka loo aaso la markaas baroosin baa loo aasaa waarteen marsa la yiraahdaa meelaha ay ku xirtaan maraakiibtu way hadda waxa la sameeyaa waa la xarig xoog badan baa ku xiran meel baa lagu xiraa marka waa horana meelaha aan lahayn maaratay dekadaha fiicanna dhulka loo geliyaa baroosin baa bira wadato oo ciida galisa baa loo geliyaa dhulka oo xoog celinaysa marka biyuhu waxay ruuxayaan markabka ama doonta xarigana baroosinka celinaya marka Allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala buurahan waa baroosinmo aan ku qotomina dhulka saan dhulka u gariirin sida quraanku sheegay anta midabiku والجبال وأرسال الله واقتميها أرسال الله واقتميده الجبال بوره أرساها الله دولك كقتميه سبحانه وتعالى الله محوسا ويالاي سمادا الله ودسي يهمينك يا مالنت دولك الله وفدي بيها وكسو بخيه يا waxa la cunahayo buura lagu qotmay maxaa rabxuusa u yeelay mataacan raaxin wa nafci waxtar لكم أدينك بين آدم كينان وحلا ترهيو يا نفعي ولا أنعامك محولهن العلا وحان ساقو يالني أدينك الدرتين واي أدينك بين آدم كأنه كنا في عسان وكنا حيستان أدكونك يحولهن ساس أدينك أو يالني وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أدينك سألو يال انت سن وحويان وقيبتي صدحات أو هيد آيات كونية أو لو درس سينهايو أما ربا إن لو عقل عليو تتقيامها جديدا أنا هذا أنت ملاين صبحين أدو محات هاي غير كان بالا ديسي دول كان بالا فيديي أدو محات أنت كيلا تادية مسكين كاغان وحسمو ده هي ها محات هذه قيامها دعي مركب قيامها لغا شكينيا قيامها دو دعسي وحنا قونيا فإذا جاءت هديت مادو الضامة تي دبوليسي كونك أودن ضامة الكبرى وين كبدني بلايا كوين لما أركض دونه واحد بلايا الدنيا صومري إيه لقى عبتي بلا كوين مصيبة كوين أو كونك صومري سامن جرت الله يقول عبر الضامة الصاخة بمتجي دونه تندبوليسي كونك أودن إيه وينك من هديت مادو maxaa dhacaya maalinta فإذا جاءت هديت مادو الضامة تي دبوليسي كونك ديبكيدا ku دبوليسي الكبرى وين كبدنay يوم مالين way marka iimaanayso يوم maalin bay iimaanaysa ama يوم maalin أعني waxaan u jeedaa ama أذكر ama hore ku dhajiba يوم maalin bay iimaanaysa يتذكر الإنسان qofku uu xusuusan doono ma sacaa wuxuu sameeyay maalinta qiyaam markuu dhaco ee la soo baxo qof kasta wuxuu dib u akhrinayaa noloshiisa wixii soo maray samaysay ma qof kastaba uu xusuusan doono laakiin maxay taraysaa wa anna lahu dhikra qiyaamaha hadaa xusuusatid waxa samaysay xusuusu maxay tarin la soo dhaaf xilliga shaqada waxaa la rabaa hadda rabbi subxaanahu wa tacaala hadda wuxuu nagu sheegayaa si aan u si diyaar garowno oo hadhow aan u shalaayin yowma maalin weeye oo qiyaamuhu u dhaco yatadakkaru linsaanu insaanku bini aadamku uu xusuusan doono maa sacaa wuxuu falkiyey wuxuu shaqeeyey wa burizat la daahiriyo bannaanka la keeno aljaxiimu naartii jaxiimo ahayd liman qof yaraa wax arko indha leh qiyaamaha waxaa la keenayaa naartii jaxiima nebiga noo sheegay sala allahu calayhi wasalam jahanamaa la keenayaa 70,000 oo xarig lagu hayo xarig kastana ay hayaan 70,000 oo malag ayaa la keenayaa bannaanka qof kasta wuu arkin halkaanay taagan tahay way cartamaysaa
waa qaxmaysaa maanta waxay rabtaa cadowga ilaahay iyo gaaladii iyo dadkii mujrimiinta in lagu kuro oo ay gubtay rabtaa wa burisad bannaanka la keeno aljaxiimu jaxiimo liman qofnaba loo soo daahiriyo bannaanka loo keeno yaraa wax arkayo indhale dadkii marka laba ay u kala bixeen fa amaa man qof adduunka markii la joogay sida laaha wey fa amaa man qof iyo koox labada manta waa ku dhacdaa fa amaa man qof ama koox daqaa qooqay shala waa soo marnay soomaha lidaaqiina ma'aaban soomahana soo marnay jahannama waxay u tahay meelay u laabtaan kuwa qooqay fircawna maxaa la yidhi idhab ilaa fircawna innahu daqaa duqyaanku marka waa xadgudubka qofku markuu ka baxo insaannimada oo xuduudda ilaahay dhaafo waa kala sarraysaa duqyaanku fircawn baa ugu sarreeya kuwo kalaa ku xigo gaala kuwo kalaa duqyaanku marka waa xadgudubka waa fa amaa man qof daqaa xadgudbay xuduudda ilaahay buu tallaabay wixii la faray buu diiday wixii laga reebuu ku dhacay wa aahara doortay alxayaata nolosha addunyaa dhow aakhira danka ma lahayn wax dananka ma lahayn ilaahay muxuu yidhi ina aladiina laa yarjuuna liqaa'ana waraduu bilxayaati اddunya wadma'anuu biha waaladiina hum can aayaatina gaafiluun ulaa'ika maawaahum الnaaru bimaa kaanuu yagsibuun danka ma lahayn aakhira ma jirtaa ma jirto qalbigiisa kuma soo dhixinba wa aahara doortay alxayaata nolosha addunyaa dhow addunyada iska dhammaanaysa hadda qofkaas xayaa ku dambaynaya fa ina aljaxiima naarta jaxiimo hiya ayadu alma'waa waa hoygiisa wey meesha u dambeeya hoygiisa wey ashaani waxay ka tahay maaragtay bedel idaafadii fa ina aljaxiima hiya ma'waahu saas oo kale waay hiya ma'waahu alma'waa meesha uu ku dambaynahayo waa jaxiima waay iska fiir adiga haddaa qooqday oo aakhira aada xusuusnayn oo adduunyada ay ku sirtay dhammaanaysa halkaasaa ku dambaynaysaa iska ilaali qofkii fiicnaa waa kan wa amaa man qof khaafa ka baqay maqaama rabbigii hor istaagiisa wa amaa man qof khaafa ka baqay maqaama rabbigii hor istaagiisa qofa ka baqay in rabbi la horgeynayo oo rabbi su-aalo weydiin doono wuxuu sameeyey nabigaa noo sheegay sala allahu calayh wasalam in qof kasta rabbi la hor joojin doono oo rabbi la hadlayo turjumaanna uusan jirin xagguu fiirinayaa midigta waa camalkiisi xaggaana waa camalkiisi halkaana waa naartii jahannama haa markaasa nabig wuxuu yihi fattaquu naara walow bishaqi tamra kamaa qaala sala allahu alayh wasalam naarta iskaga ilaaliya walow xabad jeexaa sadaqaysataan qofkaan helina fa bikalimatin dayiba wa amaa man qof khaafa ka baqay maqaama rabbihi hor istaagiisa waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani wanahaa ka reebay annafsa nafta ka reebay caynlahawaa waxay jeceshahay halkaana war ka joogaa rabbigu ka baqay hor istaagiisa naftiisa wuxuu u diiday waxay rabtay naftu waxay rabtaa waxun bay rabtaa wanahan nafsa nafta ka reebay canilhawaa waxay jeceshahay ka reebay haddaa naftaada raacdid dee ayadaa ilaah ka dhigatay ilaah la caabudo beenbeena naftaa ugu sokaysa afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu naftaada haddaa raacdid oo aadan rabbi amarkiisa raacin rasuulka maxamed sala allahu alayh wasalam dee adaa is caabudahaya qofkaan ama kooxdaani waxay ka baqeen maqaama rabbihi wanahan nafsa nafta ka reebay can ilhawaa waxay jeceshahay amaalkiisu muxuu noqonayaa fa ina aljannata jannadu hiya ayadu alma'waa wa hoygiisa way halkaasu u hoyanaya wuxuu ka baqay in rabbi la horgeyn doono oo rabbi waraysan doono oo su-aal la weydiin doono wuu is ilaaliya marka naftu waxay rabtaan waa u diiday inagu muxuu yihi sal allahu alayh wasalam xufat innaaru bishahwaat soo ma naarta maxaa deyr u ah wixii naftu rabto wixii naftu rabto haddaad samaysid dee naartaa galaysaa wa xufat iljannatuna bilmakaarih fa ina aljannata jannadu hiya ayadu alma'wa waa hoygiisa dadki waa kuwaas marka qiyaamaa la tegay labadan loo kala baxay adiga marka haddaad joogtaa soomaha ka fiirso naftaada ha raacin rabbi raac subxaana wa tacaala rasuulka adeec sala allahu alayh wasalam qeybta u dambaysa suuradda oo shanta aayadaha u dambeeya oo ka bilowda 42 waa 4 aayadood miya
يسألونك وقيامهم مركة سؤالها يوديان النبي صلى الله عليه وسلم نمانكي ريق قريش حيلي قال نولا كما أنتوا أنا والله من سؤالها واكينا يسألونك وحي كويدين دونان عن الساعة قيامة أيانا قرمو أهان مرساها بعدة قرمة لسوق التبينية قيامها قرمة لكيني قرمة قيامة دي دونا بيكويدين ها يسألونك وحي كويدين دونان عن الساعة قيامة أيانا قرمو أهان مرساها قطمينتيدو لعدة قرمو هانايا ألوحي فيما محيبا شيء أنت أدو آكتهي من ذكرها حسكيد لأن محمد صلى الله عليه وسلم أذان وين با وربك ما هيسي أذان لو ودي ما هم با سامع وجدي هذا ما وجد با حديث جبريل محوها فأخبرنا عن الساعة ما المسؤول عنها بعلمه من السائل أنا أدوك من كنا موجا مركو فأخبرنا عن الساعة أنا أدوك سميت باكنا جبريل أنا أديك جبريل يا أنا محمد صلى الله عليه وسلم سميت باكنا عندنا موجا لا يعلم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى يسألون وحي كويدين دون عن الساعة قيامة أيان قرمو دعين مرسا أيان قرمو هانين ده مرساها دعيدو قرمو لسوق تمين فيما محيبا شيغيبا أنت أدوكتها إن محمد صلى الله عليه وسلم من ذكرها حسكي شيغيد ده يوغال كده أدو محاكتها ما أوجد با وحاكو أوجدها ملا أديك ما أوجد أدي شغالة محيطها إلى ربك أنت كأبو هذا علم جدوي إلى ربك أنت كأبو هذا منتهاها أدو مؤجد كوا كلنا مؤجا ملائكنا مؤجا جبريلنا مؤجا إلى ربك أنت كأيو هذا منتهى علمها منتهاها لما أنشها علم قيامه أقال قيامه رب كل ما سبحانه وتعالى هذه شغلات محيطها إنما إنك لما هني أنت أدو وحتى منذر من قف مد وديهية كوح مد وديهية يخشى كبقية ها قيامة شغالة واحد هذيك قيامة ودك دتك قفك كبقية قيامة يعقوبة إلهي كأودك ها بشيرا والنذيرا سماها ها ودك دتك هذا قيامة شغالة أنت سوي ور ربي الرمية ربي الضيعة أنا الراعة قيامة شراء عقاب شراء وشك دتك إنما إنك لما أنت أدوه منذر من قف مدو دقياتها كوح مدو دقياتها يخشى كبقى هي من كاس يخشى كبقى هي ها قيامة كبقى هي وعلى صوب حيبا ذاتك إنكر سنة محاكو دعي بالفيري كأنهم وبايكو يوم مال يرون أي أركان ها قيامة لم يلبثوا وبايكو أن شوغين أو الدنيا ذا إلا عشية قلب ما هنا أو ضحاها برقا كيدي مركي لصوبح قبورة لغا صوبحي وقيامي لصوبحي با انت الدنيا دا كن ولايين 7 سنة 100 سنة كبدا 200 سنة عمرك بشرك أو كلا دونا waxay la noqotay inay adduunyada joogeen hal maalin galab iyo barqadi waa hal maalin inay joogeen kaana waxa moodaa yawma maalin yarawna ay arkaan ha qiyaamada lam yalbathu kuwa aan nagaanin oo adduunka aan joogin ilaa casheetan galab maahane oo duxaaha barqankeeda suuradan marka suuratu wanaazicaat hidaayadkeeda waxaa ka mid ah dhaarta ay ku bilaabatay rabbi malaa'igta ku dhaaranayo malaa'igta in lagu dhaarta makhluuqa ilaahayna alla samayn kara subxaanahu wa tacaala bini aadamku ma dhaaran karo noolo kale aan alla ahayn rabbaa ku dhaaran kartaa asmaa'i wa sifaati laakiin inuu rabbi ku dhaarto makhluuqaadkiisa qur-aanka waa ku aragtay washamsi والفجر والضحى ربها إسكاله سبحانه وتعالى إيوه إن لسوغو عقيدة بعثك يا أبا المرينتا لمشهدي صبحنتي وحي قدم بيجي هي قصص كأنبياء ونبي الله موسى يا فرعون قصة كساب سنة أينا عبرة أي كسوغان تهي إيوه أود إلهي سبحانه وتعالى اسمها كون كان ولسي آيات كسونا أن صومرني تصينا هي الله أود داله إنه دد سوء عليه وأسهل انتهي haddii qiyaama dhaco dadku sida ay kala noqon doonaan dadku sida u kala bixi doonaan laba qaybood in la noqon doono cilmiga qiyaamaha ogaalka qiyaamaha
cidna ma oga goor qiyaama dhici doono rabbaa og subxaanahu wa tacaala, cid kale ogi ma jirto. nebi maxamed sala allahu calayh wasalam xataa garan maayo. iyo bini aadamka sida lagu barwaaqay oo nicmada loo siiyey rabbi u siiyey subxaanahu wa tacaala, oo ay tahay inay ku shukriyaan intay nool yihiin si aakhira ay u badbaadaan. wallahu aclam, sala allahu calaa nabiyina muxamedin waali.